السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها الصومالي ذا شرفت بدن محسنين تأه ميركز تشوغا دونكا كليب كاير أركي سرالكا إن شاء الله تعالى ولكن عبد الرشيد داود ديريه كليب ير أيا لقد دوبي isaga oo arrin muhiim ah ka hadlaya marka insha Allah codkiisa waan idin daariyaa markaan codka yar aan duubayo imika markaan dhameeyo isaga wax kasta Cabdirashiid idin sharaxi doona oo wax kasta isaga insha Allah taala codkiisa idin ku sharaxi doona marka walaalayaal waxa la inaga rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogno in walaalkeen la caawino wixii aynu u awoodi karno inaanu bixino shilin kasta aad bixisid waa faa'iido shilin kasta aad bixisid faa'iido weyn Cabdirashiid si degdeg wuxuu u baahan yahay in mootada aad aragtaan uu fuushan yahay in loo gado wax kastana isaga idin sharaxaya lambarka halka la soo dhigay insha Allah taala kala xidhiidha magaca embasada ku qoran waa magac ka duwankiisa waxa ku qoran magaca embasada waa Farxaan Cali Shariif isagana idin sharaxaya sababta magaca embasada uu Farxaan u yahay marka walaalayaal dhageysta codka kuna dadaala inaad wax kasta oo aad kari kartaan inaad ku caawintaan walaalkeen Cabdirashiid ilaahayna muxsiniinta uu jecel yahay wallahu yuhibbul muxsiniin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يا مسلمين توا إذا سلام يا سلام تنوقع للسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة وحنا خاص سلام يا أمد الصوماليات ويسكن له غدا يسكن جنسك عن هاي يسكن دينك هذه يعني دين سلام يا مرك ولا ليال وحنا هاي مقعي وحنا هذا عبد الرشيد داود ديري وحنا هنا ولا الكينة nool dalka Kenya gaar ahaan xarada qaxootiga kuma degan haddana idin kala hadlaaya magaalada Nairobi xaafadda Islii oo bishaan ku sugnaa ay labadan bilood aan dhaho marka walaalayaal waxaan ahay nin naafa ah oo lugaha naafa ka ah waqti dheer naafaha yaraantiisa naafoobay macallin dugsina ahaa marka olaha dadka naafada ay isticmaalaan ay ku socon jiray inta muddo hadda 7 sano ah ayaa xanuun ihayay oo ah sinta lugta bidaxda oo xoog ah sinteeda marka hawshii dugsiga oo u baahan fadhi badan waan awoodi waayay waqti hadda aan dhihi kara inta uu xanuunka ihayay 5 sano oo kamid ah dugsi maanan dhigin marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa oo aan idin soo diray mootadaas dadka naafada ah looga tirgalay oo muuqaalkayga cidii aragtay iyo cidii aan arkin ee arki doonto intaba mootadaas dadka naafada looga tirgalay lacagteedana ay tahay oo yaraan $2,500 ay noogu sheegeen kuwii kambaniga joogay 2,250 ay nagu dhaheen oo sidaa iska tagaysa oo meel toonka ah taallo oo lagu iibiyo oo kambani inaad mootadaas ii gadaan oo aad iiga kaalmaysaan masaajidka aadistiisa iyo axwaashayda yararka inaan qabsado anigana aan idin duceeyo duca aad iyo aad u xeel dheer oo ilaahay idinku anfici doona insha Allah adduun iyo aakhiraba adinkana aad ii kaalmaysaan qof walba awoodiisa ugu kaalmeeyo waa qofkii wax igu dhaame ayaan codsigaas u soo diray una soo duubay videogaas marka walaalayaal waxaan qof walba oo walaalaha muslim ah Soomaaliyeed anaan cidna iyo qabiil u fiirinayna kelimada tawxiid kula walaalaha iyo maaragtay luqadda iyo Soomaalidu ay tahay hal dad ama hal qabiil waxaan idinka codsanayaa qof walba oo videoga ay muuqaalkay uu soo gaara inuu iga soo caawiyo wixii awoodiisa igu soo caawiyo lambarkaas ayaan wataa oo Safaricom ah magaca embasadana waxa weeye Farxaan Cali Shariif magaciigana hore aan kugu soo sheegay Cabdirashiid Daawud Diiri ayaa la yiraahdaa magaca embasada hadii aad tiraahdo maxaa kala duway magaca kala caadiga ah dee aniga qof qaxooti aan ahay sharci kayma haysti marka saa darteed ayaa embasada waxay u baahan tahay in lagu rajisgareeyo sharci Kenya yaraan saaxiibana sharcigiisa magaciisa ayaan ku furtay embasada laakiin lambarka ana isticmaalo wato marka aad iyo aad baan walaalayaal idin salaamayaa daa idinku dheereeyay iga raali ahaada wixii caawin ah ilaahay baa caawiye dadka walaalka muslimiinta waxay isku leeyihiin is caawiyaan marka aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu